السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا شرفت لي ميل كست أدونك أكجوكتان آدي إذين سلامة يا كسر هذا برنامج كده يقولون شو وح بدن قيمة بدن أغبرتين إن شاء الله تعالى ما أنت برنامج كدوين هي برنامج يدي هره إن شاء الله تعالى ولا شرف بدن وقيمة بدن أيام ما أنت برنامج كمرتين وقوة يا oo nala soo koriyay nala soo muxuu ahaa dhisay nala soo isticmaalay productiga asli pure care ya exactly ma ahan dad iska wadooyinka laga soo qabsaday ma aha in fact dad aad u qiimo badan oo agtayda muhiim ka ah waaye maasha Allah walaalahay khayr Allah siiyo waxaan ku hormarayaa walaashay shiino oo joogto wadanka Mareykanka إن شاء الله تعالى كاستمرنا نو أهيد قبردر إلهي اسكو براني آد اسو آمني ضد كانوا اسو جعلنا هاي هذا إن شاء الله تعالى شينو كسو دو برنامج كده يقولوا الشو إن شاء الله تعالى توصى وجرتا ولا لها كلا قبلها كلا أديكو كلا متكأه أنيجي إلى متكأه وحاربنا إن الله شير قرينو إن شاء الله كان بيني أصلي بيور كير وحيابيه آد كلا كلانتي ما أها كلية بوزيتيف وحفي عن يوحن انتبه وحرمنا إنا وحي يردد كلا شير قرينو إن شاء الله تعالى كسو دو شين عدي وادو هاي أدبارو دو هاي وانا محسنتا دمانتين وانا السلام يا بانت إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله marka xiga horta magacaygu waa Shiino waxaan ku noolahay Mareykanka America ku noolahay magaaladeed degantahay Shiino Massachusetts aan deganahay Boston okay marka aad ugu faraxsanahay maanta inaan aan horta barnaamijkan kala soo qayb galo sababaha ugu soo qayb galayna waxay tahay wixii aniga aan isbedel oo aan arkay iyo waxa ilaahay deey wax kasta ilaahay ba rasuulka meesha daawada ku jirto iyo wixii ahaa madaan nahay walaalana nahay inaan isku faa'iideyno in sababta kala soo qayb galaya deeqana gaar ahaan waa u mahad celinaya gabar walaashay ah oo taraf leh waaye dad ilaahay ku barana deeqa meesha kugu barto waxay ahayd Facebook-ga ada wadda dadka sida isku baranay horta marka ugu horeysa deeqa codkay clear ha abay clear way u maleeyaa si fiican sida isku barana waxay ahayd adoo Facebook ku jira live ayaan ku daawaday markaan ku daawaday ilaa amarkiis sarabka ka sheekeynaysay marka anigana problem aan qabay oo allergy whole body special face-ka waana allergy oo dabiici ah aniga jirkayga ku dhacay waaye ma ahan allergy ama wax ka qaaday waxa ismariye aan ka qaadana ma aha allergy iska sheegana ma aha marka saan ku daawanayay ka sheekeynaysay wadnaha waxa saaid u dareenayo oo very interesting ku aha like wajigayga waxyaalihii u dhibsanayay saaid aan wajiga qalali jiray sarabkiisaas ayaan u daawada waxa dhax gabadha waxay sheegaysaa Romia waxaan transcribe Facebook-ki aan kugu darsaday isla ormar lacodan ku soo duubay waxa kugu dhaabaya please I need now contact kula soo suubiyo oo kula xiriirka abarka bacdi adiga maalintii dambe ay aragtay waa iso jawaabtay waa salaantay waa soo dhaweysay barnaamijka ay sharaxday adna waxay weydiisay question su'aalo ay weydiisay sax alaas waxa kamid ahaa waxay dhahday allergy-gaaga maxaa waaye dumarka dhan waxay iska dhahaan allergy never forget waxa dhahday dumarka dhan waxay qabaan allergy qabaa ha sensitive ah dumarkeena iska dhahaan sensitive ah dumarka iska dhahaan marka allergy-gaaga maxaa waa ku sheeg waxa ku dhahay aniga problem ay ugu dhacay abaayo problemkii aan ku sharaxay allergy noocaas ay ugu dhacay wajigeedana waxaan marin karo ilaahay abuurta ma laha hatta korkeeda faslina marsada wajigana faslina marsada waan ku baxaa waan ku soo sax allergy-yada marka haddaan ka dhex galo Shiina walaashiis allergy-yada ma aha allergy chemical amarsatay oo adi ka qaaday ama wajiga ama jirka amarsatay ma aha waa natural oo allergic ah oo dadka ku dhaco caadi ahaan aniga allergy yes abaayo allergy-gayga ma aan allergy aniga waxa ismarsaday aan ka qaaday ma aha I hope deeqa ina aragtay masawirkayga Facebook iyo WhatsApp-ka ii saarnaa jira marka isla hadlayno isbaranay
way ugu dhahdeen maxaad deeq maxaan waxaa tahay qof oo normal colorka aday waxaan ugu dhahay colorkaas baa ani madowgaas ahay laakiin waa allergy ani ilaahay maybe aan ku dhashay waaye anoo yaraa waxaa dareemi jira korka xanuunji bararaja laakiin ma fahansanayn meel oo afar Nairobi la dhaafo koray problem badan igu dhacay waan xanuunsanaan jiray waan jirnaan jiray caloosha la iga dhiganaan jiray korka ay cuni jiray waa matagi jiray dhibaato badan ay igu dhacday marka waxaas maxaa ka qaadi jiray cunto iyo carafta mana fahansanaan jiray mana fahamsanayn waxa u malaysa sax ha mana fahansanayn aniga waxa u maleeyaa wax oo like xanuun iska haya ama malaria inaan qabo ama typhoid inaan qabo waxa laga sheegi jiray bahal waxa laga sheegi jiray typhoid waxa laga sheegi jiray malaria waxa laga sheegi jiray gas intaasna weligeed ma igu dhicinin laakiin problemka ay haysan waxa skin problem aan qabay oo markii wax oo guriga waa taqaan dhaqanka Soomaalida unsi baa shidanayna actra marsanayna waxa saabuun iyo wax la kala soo cadmidna maalaha markaas madaxa ay xanuuni jiray waan wareedisi aan waan wareegi jiray waan matagi jiray sida qof uu naag wala oo kale allergy in la matago sheena meeshas igu jooji in qofka allergic markuu qabo oo allergiyada ku kacsan tahay oo jirkiisa wax dhibsanayo uu cuno ama taabto ama u soo uro in intuu madaxa xanuuno uu la laboodo uu matago dadkeena in badan ma oga marka waa muhiim casharkaas inay wax badan ka fahmaan aniga igu dhacday aniga qaba hadda in la hadlaaya qaba ilaa ma aan America imaaday oo la ibaaray wixii igu dhacay laakiin qisadaas aniga qaba oo ku soo koray oo ahayna waxaas dhibsato ka raacan xitaa ma dhahayo laakiin waxay noqotay jirkeyga Ilaahay ku abuurmay noqotay marka dhaqaatiirta maxay kugu sheegeen markii ku baareen dhaqaatiirta waxay igu sheegeen markaan Africa ka soo tagay noo sida uu qabo wajiga way iga halaaba marka because wajiga soo dry u noqonayo oo waliga wax isticmaal wajiga muxuu noqdo bara inay iga dhashaan muxuu noqdo qolfo meel kaste muxuu noqdo aniga fool xumo wajiga dhan si uu ibadal ma korkii wuxuu noqdo dry gacmihi lugahayga maxaa ku abuurma wax wada dhibca iga abuurmay ina haw dibkaas aan qabay waxaan aaminsanaa inaan gaas qabo waxaan aaminsanaa inaan bahal qabo caloosh igala jiro waxaan qabay inaan wax kasta qabo sakaraad iska niyadu iga dhimatay si waxaan ku sanaan jiray American imaaday state hadda ay sheegay laftiisa imaaday magaalada markaa baritaan baa lagu suuqay waxa la gaas ma qabtid bahal ma qabtid wax kasta ma qabtid waxaana aniga shooga ah gurigii unsiga ku shidaya araftii iska dhex taaganahay wax aan kala dhowraay mala kareen ii fiican ma aqaani wajigu iga sii halaabaya ma garana cuntada qaarkeed markaa cuno bee caloosha inta la iga dhigaa ma tagaaya arafta qaarkeed markay urta waa la laboona waa wareera waa ma tagaaya waa wax ugu dhacay oo real ah wax aan qof oo sabato uga raadina ama teega ma aha waa wax lifekayga ku dhaca experience waaye walaalaha khayr Allah ku sii waa la wadaagaysaa ma sha Allah oo jirkayga dhan hool may baadi dhan badashay waa wallahi ani qof waxa ahaan madoona ahaan cadaan ma sha Allah dhaqaatiirta marka maxay kugu sheegeen dhakhtar baan tegay dhakhtar weyn 6 months waxa ugu jiray reason waiting dhakhtarkii aan tegay dhakhtarkii waan u sheegay sidaas la ii qabtaa food allergy wax la dhaha la iga baaray season allergy la iga helay that's not markii allergy ma dhaha ma aha okay dhakhtarkii markii baaray dhiigad baa la iga qaaday wax kale la ima saareen wax alla wixii computer la saarayo everything inta wadankaas joogay ilaa 3 years and 3 baartaan ay ugu socday ilaa wax markaas wax la iga hela ma jirto dhakhtarkaas oo waa dermatologist waa dhaqaatiirta skinka waaye dhakhtarkii dhiigagu iga qaaday kala bedelan oo noocyaal badan ah markuu iga qaado wuxuu iga hela waxa la yiraahdaa nickel allergy waxa la dhaho nickel allergy ya ma aha markii allergiga caadiga aha maxay dhahay allergigaaga aan qabto waa loo dhintaa wax loo dhinta waa saaka nolosha lifekaaga nasiib baa leedahay aad u yahay wax aan ku dhibayn adduunka ma jiraan buu dhahay buskaa ku dhibaaya cuntada 100% cunto badan oo vegetable-ka oo greenka wax alla wax green laga soo biyo ku dhibaysa proteinka way ku dhibayaan waxa kale oo ku dhibayo dhahay carafta iyo waxyaalaha oo aan ahayn sensitive ku xiisan waxaas way ku dhibayaan muxuu ugu dhahay dhakhtarkii kaama daaweyn karo inta maanta daawo ku siiyo daawadana ku raysanay hooq kuma dhaha laakiin waxa aad soo bi kartaa waxay tahay saacadaas from xilligaas la joogo everything ina stop garaysid cuntada aniga aan ku sheego waxa ay macul saabuunta aan ku sheego waxa ay dharka kuma dhaqaysid taas soo bi okay sidaas soo bi wallahi xabad kaliya deeqa ma la ii soo qorinin nacam baarid waxa marka qalab baa la igu xiray oo ilaa 6 days ugu xirnaa oo aan ku shaqayn jiray oo xabad u seexan jiray sida waxaas intay jirka u mudaa daawo lagu shubay waxa jirkayga ku jira la soo saaro okay wuxuu dhahay daawo ma ku qoraayo sidaas aad ahaanaysa
wax kasta waa ka fogaanaysaa waad ka cararaysaa waxaa laga joojiya ukunta waxaa laga joojiya malabka waxaa laga joojiya timirta waxaa laga joojiya all digir dhan nuuc ay tahay hadday vegetable tahay iyo hadday tahay digiraha kasoo baxay wadankenaga any digir oo dhan ba ama ha qoyanaato waxaa laga joojiya wax laga sheekeyn kara maahan all green vegetable oo dhan bismillah wallahi waa experience fiican waay maasha allah wejigaaga maxaa marsan jirtay markaas fasaliin basaa marsan jirtay saa ii sheegtay markaasa xitaa fasliinta ii qora markii ka horreysay wax leen ku dayaa waa ka dhaafaa fasliinta ayadaa xitaa laba nuuca midna waxa waa dermatologistigaas oo waxaa la dhahaa ayadaa dermatologist baa ku qoran skina ku qoran midna waa midda ilmaha loo mariyo midna waa midda ay gel ay ku qoran tahay midaan maxaa ku qoran dermatologista ku qoran dhakhtarka taasu ii qoray xidhaa fasliintan qaado guriga ka tagto wuxuu dhahay wuxuu dhaha wejigaaga hal xabo saabuunha ku dhaqan dadka marka horta saabuunta isticmaala ma ahayn because wax kasta waxaan ka qaba dhibaato saabuunta haddaa marsa wejiga xarka buu ku noqonayaa wuxuu dhaha fasliintaas mari amiin iyo maalin marso ku soco ilaa wuxuu dhahay waxa kugu qaadanaya yeer bay waxa baa wejigaaga xogaa jileec noqonaa buu dhahay because jirkaaga dhan wuu dhinto i dhahay okay markaas maxaan bilaabay youtube-kaan galay deeqo marka youtube-ka galay cuntadii waan joojiyey caraftii waan joojiyey saabuuntii la ii qoraa dharkii ku qortay tii la ii qoray aan ku qubaystay body washkii la ii qoraa ilaa hadda sidii yaa ahayd nothing change waxaan bedelo ma laho alxamdulilah youtube-kii aan galay youtube-kii markaan gala waxaan arkay gabdhaha dhahaya soomaaliyeed maasha allah ilahay khayr ha siiyo qof kastoo soomaaliya oo qof ku faa'iideeya bisha dumarka wallahi way mahadsan yihiin dadkana uma amaal dhaco wixii aan adiga kuu shaqaynin ma kuu shaqaynan qof ayaa u shaqaynaya qof ayaa ka faa'iidaysanaya marka qof kasta oo wanaagkeena bisaqlaaqeena la dhaho gabdhihii marka geeda la isku dardara like yaanyada like waxa oo geed salary wax la isku dardaray ba waxaasa la shiidaa bariis baa la marsaday something like that wixii aan ma marsaday markaas marka wixii ma marsaday adiga cuntadii markaan joojiyay yara waan roonaaday laakiin wejiga foolxumada ma iga baaba'een waa run iyo taydkii still waa sidii okay anaa sidii iskaga jooga waxaan isbarana deeqa marka waxay soo dhigtay alaabtaasi ii soo dhiibtay alaabtii marka ii soo dhiibtay waxaa iri aniga cuqdad baa iska qaba marka gabadhan ayadoo magaca ilahay ku dhaaranaysa ayadoo dadka wax u sharaxaysa faa'iidada khasaarada leeyahay waxaan dhaha bal waxaan ka jiba gaar because waxa soo jiidatay kelmadda ah like waxaan taydkay kaa baabi'ina wejigaaga wuxuuba noqonaa softi anigana wejigay wax softi ka dhigay waan waayey fadlintaasaa markaas ii roonayd oo aan nafgadi jiray oo aan markasta marin jiray oo markaas anigaba aan naxariis dareema bahashii deeqa way iisoo dirtay marka iisoo dirtay waan isticmaala say itiri u isticmaal baan u isticmaal kareen iyo serum iyo face wash bay ahayd ilaa hadda face washkaas wallahi aniga waan jecelahay wejigiyaan ku dhaqay waan kuu sharaxa deeqa waxa igu dhahday wax ku dhaha deeqa dee waxay ku celceliyay waxa kugu dhaha deeqa waxay cadday mar rabo aniga madowgayga ku kalsoonahay waan wejiga la u idhinta cadaan ma rabiyaan ku dhaha wax ummadda iga dhex saaraya ma rabo dhibaan soo maray waa igu qasasha waxaa tidhi aniga waxa la cadeeya ma suubiyo ee isku kalsoono waa igu dhaha si fiican maadaama adiga alerjiyo badan iyo dhibaato badan aad soo martayna aada ii ehbinaysay adiga dhan waxaa waaye baanrooyo weyna kugu xirnayd waxaa tiri alerjiya amaan ka qaadaa amaan ku xanuunsadaa walaale waana rabaa wejiga wax ii qurxinaayo ilaahay ka cabsi maxaan sameeyaa marka wixii adiga waa adiga un ilaaha ku waafajiyey wallahi waxay dhahday makeup-ka xitaa samsa waxaan kugu dhaha deeqo yani xataa makeup ma marso waxaas ma u hawoonayaan ku dhaha wallahi xaflad ma aado wax ma aado ilaahay aan ku kalsoona alxamdulilah cuqdad nafsi ma igu dhicin laakiin problem inta igu filan waan soo arkay baadhigayga iyo wejiga qofka bilaadankaana wejiga waa wixii dadka la dhigay waa runta maasha allah hadda face washki iyo serumki markaa isticmaashay see maxaa kow dareentay waxaan dareemay deeqo waxa soo biyo sida ay tiri isticmaalay wax kale kuma darinin faasliinta waan jooji waa ku sheeg wax ku dhaha faasliin baa waxa ay tiri ha isku isticmaalayo hafta stop ay dhahday waan joojiye faasliin anoo wallahi faasliinteeda deeqo markaan shaqada aado jeebka aan ku wato isdhahaya no tan haddaad daysid qolfiha kugu soo noqonaa waa runta americana waa very dry qabow maaragtay heaterkii wixii dhan adiga dhan waad dhimanaysaa marka waan marsaday sidii ay ugu shaqtaa u marsaday wejigayga habeenkii markaan marsaday waan yaabo horta hal mar baa wax iga soo yaaceen oo qolfo ah oo meel ay ka imaadeen waa isdhahaysa wejiga nabrahan waxaa makaa dhacdhacayaan muraayadaan ku ordha waan isku fiirshay meel waxbaa guduud soo noqday bahasha way balbaline cabaar marka adkaystay normal ay noqotay waan continuous gareey waan waday 3 bari marka waxaan dareemay bright wax la dhahaa baan dareemay shiny aan dareemay qurux aan dareemay ina cadaatay
inaa caddaaday oo kalarkayga because gacmahayga dadka markay arkaan inaan qof saaid u madow ahayn qofku i dareemaya haddana wejigii waxaan dhaha wejigayga saaid u dhintay marka waxaan dhaha yaxaan dareemay meelaa ka shaqeeya waxaan dhahay dadka amay ku dhaha gabadha waa is caddaysay wallahi hataa gabdha ila shaqayn jira one of them baa i weydiiyey ina maxaa waa ayaantan change yaa tahaa laydhaa marka waxaan dhaha no wejiga wax iska marmarsadaan dhaha wallahi because waa necib aniga waxyaalaha la isku cadda waxaan dhaha no wejiga waxa iska magiye herbalka oo gabdhaha youtube-ka soomaalida ka sheekeeyaana iska isticmaalay deeqaluul way soo wacday xitaa waxaa tiri waa caddaanaya maxaa waaye aniga inaa is caddeeyo ma rabin kalarkaygii saasa i tiri wejiga horta wuu iisoo qorxoonaaday qabaarkii markaa xeerta quruxaa noqday wejiga maxaa ka dareemaya softy maxaa ka dareemaya like jilaac maxaa ka dareemaya like biriq light aan ka dareemaya maxaa ka dareemaya nabrihii wixii qolfihii inay dhacaayaan haddana light sii noqonayaan aniga dhan wallahi isbedel big change aan dareem kasa maxaa kugu dhahay waa isku kalsa wax dhahay deeqoy haddaad sii wado because maxaa igu dhahday habeenkii marso subaxii marso saas u marso waa ku saabacan kula deeqo abay aniga bright saaidaan dareemaya I don't want it illa dhaho caddaan ma ribi aniga ilaahay ba qalbigaygu caddaan ma raadinaayo markaas ay ugu qasasha waxay dhahday maxaa soo bisaa habeendaa u marso ama laba habeen u marso ay dhahday teeda kale adiga waxaa waaye qof aad u madow ma aadan ahayn elerjiyadana waxay ku saartay skiin kale iyo qolof kale oodan u dhalanin marka qoloftii iyo skiinkii madooba oodan u dhalanin lagaa riday ee kaa dhacday oo nadiif ah ku noqotay marka skiinkaagii oo nadiif ahoo bright ah keliya soo baxay adigana waxaa u malaysaa hadda mugdigan iyo qoloftaana la qabsatay marka inaaba bright noqotay bright ma noqonin kalarkaagii oo lagu nadiifiyey le waayo mogtaa aad iyo aad marka ay dhahday laba habeen marso cabaara ugu qosasho waxay ugu tirishiina laba waxaa tira bahasha dul qaado waxbay qolfay soo fujinaya mid baa baxaysa mid baa saara kalarkaagi le waaye caddaan gooni kaama dhigayso and then sidii baan yeelay laba habeen markaa waa marsan jiray hal sanaa kasoo wareegtay aniga waddankayga aaday muddan ku maqnaa macnaha bahashaasa u xiisayna kareenka markii laga dhamaa deeqa khayr allah siiya mar kaleeto gabdho kalan ku xiray alaabi usoo dhigtay xabad kareen oo kale igu soo dirtay kareenkaasna very nice oo ahaa aniga wallahi waa jeclaa kaba amaal dhacaayo waxaan indhahayga ku arkay buu ahaa maasha allah baayo maasha allah wallahi waxaa indhahaada ku aragtay waana experience waaye waxa hadda jidkan dheer ah soo martay adi walaalaha hadda aa u sheegaysid ajir badanaa ka helaysaa dadkeena dad badan oo iska wareersanaa jiro gabdhaheena especially ma fahamte marka dadkaaga inaad la sheergaraysid waa wax weyn ma qof wax ku siiyo waxaa la dhahay waa la helaa laakiin qof wax kuu sheega badanaa lama helo marka sida ay wax kuu soo gaareen ilaa yaraantaadii ilaa alerjiyadii aad qabtay ilaa maraykan aad timid ilaa aad iska daaweysay dhakhaatiirtii sheegeen adigii is ilaalisay intaasoo sano adigii yaraan ilaa iyo qof weyn aa noqotay istaragalaa kusoo jirtay markii dambe alxamdulilah alerjiyadaadii aa ogaatay aa la macaamishay wax weyn waaye iyada laftigeeda ma ogtahay marka maasha allah shiina waxaa kaloo ku faraxsanaya waxay tiri deeqaluul productigan kambanigan aadan ugu kalsoonahay weligay aroos markaa aadayay xitaa fasalina marsan jiray tiri weligay make up xitaa ma taabanin sida aan wax kasta aan oga cabsanayo oon u lahaa armay alerjiyada kugu kiciyaan armay kaaga daraan oo wejiga qolfihii iyo marka haddana make upka xitaa waxay tiri bal make upka laftigiisa bisinkaan u qabanaynaa markaan insha allah maadaama wejigaaga iyo jirkaaga very sensitive ilaahay shiina naguma ceebeeyo insha allah biidni illaahi kariim laakiin deeqoy waxa waa horta wax kasta waxay leeyihiin sambar iyo dulqaad qof kastana waxa uu soo marana waxay u noqonaysaa khibrad markuu dadka la wadaagana waxay u noqonaysaa khibrad it means ma ahan aniga in la wadaagayo ina aniga aan lacag business ka soo biyo ama adiga aan guri ku aqaano wax ku xayeysiinayo laakiin wixii ani aan ahaan jiray iyo sida hadda anoo wejigayga normal ah kalsooni isku qabo oo wallahi haba muraayad aan isku firay alxamdulilah oo iska nuuraayo alxamdulilah aan ahay maasha allah wax weyn waa abaayo maasha allah may qof xoogeeda shaqaysataa tahay qof lacag u baahan ma tihid caafimaadka ilaahay uu ku siiyeyna allah kuu ziyaadiyo insha allahu tacaala gabdhaha kale iyagana muxuu ahaa dhibaatadaas haysana waxaan filayaa inay muxuu ahaa waaye aragkan qaataan waa long waaye maasha allah abaayo kala qadka noogu jirto kheyr badan allah ku siiya shiina aadan kuu salaama waa mahadsan tahay macaan badan insha allahu tacaala shiina face washka iyo serumka ee isticmaashay kuwaan waaye muxuu ahaa iyo moisturizerka
marka wax weyn oo different ama aha dadka qaarkood oo nala soconin aan u sheegaya marka shiina waa mahadsantahay xabiibti iska shaqeyso aada waqtigaada qaaliga kaaga mahadcelinayna insha Allah waa mahadsantahay deeqa isbaaran oo mahadcelinaya imaan Allah waxa saafilay dadka u soo saarto asoo saacideyso wajiga waa very important thank you so much shukran abaayo ala waajib insha Allah abaayo haye macaan badan ee habeen wanaagsan soo bari insha Allah ما شاء الله ولا شيء شينا ومقليسين وقبر صوماليات وعلى كيف كذا إيه عقل كذا إيه مسكح هذا تمامي هاي مركا إن شاء الله تعالى برنامج كاس أنا قلق بقاطين وأقوم هاد علنينا وحاكلو وقدك يوجرو إن ولا الكلا أو آد أوجعلها هاي ودر إلهي سكبراني قبر محل لها هوية صوماليات أو إلى دقن وطن كإنجليز كمجالة لندن وحال لها فوزية فوزية فيعن أنا أولب حي وقف آد وقلبي فيعن نظيف ما شاء الله إلهي كحرا فوزية وحي إلى دكنتها وضن كإنجليزكا وحي إيتها كستمر وحي إيتها ولال إسجعل هل كاسان كحريرنا فوزية ولي مينان كل من ما إسأركين هل كاسان قوأها أن كحريرنا فوزية آدان كاقم هاد علينا يا وإنت آد من السوغيسي أو وقتك كجرتي إنكستو أديقا aad sheekada haweenka aad iska dhageysanaysa adiga as haween ahaan xabiibti ku soo dhawow adigana markaaga insha Allah Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh awalan horta waan ku salaamaya deeqa adiga iyo dadka maaragtay kugu xiran ama ku dhageysan doona ama ku dhageysanaya alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh dhammaantood waxaan ku salaamaya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh عليكم السلام ورحمة الله أولا وقبل كل شيء قبل ولا شاء هاي إلهي سبحانه وتعالى شمبرك هذا دقي كل جد لما هي وأمد الصومالية كبدها الصومالية ودبل عن سنة يعني إلهي سبحانه وتعالى وحنو يدين إنه إلهي عمر كاترك كلاء كقبضوتي وكبكتي إلهي سبحانه وتعالى إنه كقر قاضو آمين وإلهي سكين كيدي وناك سنة يقرح لبدنا إلهي أسوع عليو ودافنا وبدي سبحانه وتعالى آمين haddaan markaan ku soo noqdo programka anigu deeqa waa siday sheegtay ilaahay subxaana watacaala ha barakeeyo productigeedana ilaahay ha uga dhigo kii ay ku guulaysato maaragtay qof waliba dee waxbuu u aas-aasaa markuu ogool buu leeyahay higsigeeda ku gaadho ilaahay subxaana watacaala ha uga dhigo innagana kuwii ka faa'iidaysta siday walaasheen inoogu dabaashay ka faa'iidaysta oo garta waxa faa'iidada ugu jirto ilaahay ha inaga dhigo deeqa anigu waxaan u bixiyey daktar deeqa xaqiiqatan wallahi daktar wallahi jacayl iisiisay haddaa shahaadada bixin lahayd foosiyo show waa horaaba isiin lahayd wallahi billahi waa magaca ilaahay ciyaar looguma daartay inaanan kuu siinaynin yani jacaylaan kula jeclaaday dabcan laakiin sida aad uga sheekayso gabdhaha soomaaliyeed dhibaatooyinkooda iskiinka ah ee wejiga ah weliba iyo sidaad u baratay wallahi waxaan aaminsanahay dhakhtar kasta oo ama western ha noqdo ama carab ha noqdo ama cajam kaleba ha noqdo inaanu ugu takhasusi karin wallahi ayaan aaminsanahay anigu sax maasha allah maasha allah anigu markaan aan ka sheekeeyo deeqayo productiisa sidaan ku bartay youtube-kan horta ka bartay iyadoo sharaxaysa creamka iyo serumka iyo face washka ayadoo sharaxaysa baan daawaday marka yani qofku wuu dareemayaa qofku markuu run iyo wax xaqiiqa ka hadlayo waxaad moodaa sida maaragtay fallaadhaha cadeed oo kale iyo qalbigaaga u dhacaya nacam nacam wallaahi anigoo dhegaysanayaan gabadhaasi inay ku sheegayso ilaahay baa maqlaya inaanan maanta idinkana idin xayeysiinaynin waxay ay iibinaysa waayo iyadoo risiqeeda qabtaa wixii ilaahay subxaana watacaala fawqa sabca samaawaat uga ka timid waa way sax helaysa carabkaygana kuma helayso nacam iibkiinana kuma helayso laakiin realitygaan idin sheegaya markay hadlaysay 100% fiidiyowga waxaan damiyey anigoo yani gabadhaasi waxa ay sheegaysaa inay run tahay aaminsan baan damiyey telefoon baa meesha ku qornaa telefoonkii baan wacay aniga markaa problemkaygu wuxuu ahaa waxaan ahaa dadka qaba wejiga qallalan labadaa dhabanna waxaan ku lahaa haaro waxa ay igaga bilaabmeen wuxuu ahaa wax ay soomaalidu la wareegi jireen oo ay odhan jireen waa dabiici oo maryihii u horeeyay waxyaabaha dumarku ay iibinayaan lasoo saaray ayaan qallaylkii markuu iga batay
imaanaysin ayaa layidhi waa dabiici daraygu kaa biinayaa madmadowgaasu kaa biinayaa waad ku fiicnaanta marka madow saas amaan lahay xaqiiqatu wixii waan marsaday subxaan allah wuxuu iga dhigay wejigii daray kaygii kasii daran wuxuu igu sameeyey haaro markaa faadiyaan waxaan ka qaaday cream la marsadaba waxaan ka ahayn dukaamada cadaanka sida maaragtay body shopka oo kale bootska oo kale ayaan kusoo iibsan jiray creamo kan isku dari waa kasii daraa kan isku day waa kasii daraa kan isku day waa kasii daraa markii dambe farxaan ka qaado markaan daaqa daawaday waan wacay wax su-aalay weydiisay wejigaygu siduu yahay waxaan ka cadanayo waxay iisoo diibtay aniga ilaahay khayra siiya 5 wax 5 wax waxay ahaayeen face cream serum face wash iyo huruud wax maaragtay scrub ah oo herbal mask herbal mask oo isaguna qallalan iyo waxay iisoo diibtay bahalkii yaraaye ahaa isaguna liquidka muxuu ahaa bahalkii yaraaye muxuu ahaa makeupka ahaa foundationkii exactly 5 wax bay iisoo dhigtay marka serumka markaan marsaday markiiba way soo gaadheen maasha allah waan bilaabay safar baan u baxayay holidaya shaqaan markaan ku jiray يعني markaa way ii sharaxday saan marsanayo scrubka everything waan isku bilaabay markaan isku bilaabay serumka xogaa waxaan dareemay xanfaf oo kale magaranaysaa hafeefasho kale ama hafeefasho siday Soomaalidu tiraahdo oo kale marka ilaahay khayraadkiisa waan wacay waxaan ku walaalay waxaas isku arkay waxay ii tiri habeenkii ha ku seexanin markii hore habeenkii markaan u dambeysay aan seexanayaan face washkii alaabta sida loo isticmaalo waa garanaysaa ayaan ugu dambaysan jiray waan ku seexan jiray صح marka labadii habeen oo horeysay markaan isticmaalaan isku arkay hafeefadkaas baan u sheegay waxay igu tiri habeenkii ha ku seexanin intuu jirkaagu ka baranayo 5 daqiiqo isku daa iska dhaq صح ما شاء الله تبارك الله dadka midabka gabdhaha Soomaalidu u badan yihiin maaragtay chocolate marinka casaanka xiga marinka ma casaanka xiga light-ka abaanaha laakiin wajigayga kalarkiisu u dhintay صح يعني dadku markay arkaan waxay oran jireen waxaan gacmaha marisay inta badan xijaab baan xidhanahay marka gacmaha dadku arkayaan waxaan gacmaha marisay waxa wajiga u marsan weydaan igu oran jir waa runta walaahi waxaan xasuustaa gabdha xitaa isku reer masjid hayno bari dhammaan isbaranay sheego igu waa ku ducayn jiray marka waxa wajiga kaaga arag waxaan jeclay gabadhan waa gabar caday wajiga ka habaabay waa marka wariyaan ku daalinay waxaan dareemay markii u horeysay waxaan dareemay عفافتك هرت الله بس تحديد الشيء هرب كان مريم ولقط سلوجي ما شاء الله تبارك الله في سوى شيء مثلا مركان كم ما يدو بين إذنك إلهي تون ومشي واحد درين ترى قلي مركيبة مركان بيوبا إذا قلالات أيا كدرين ترى مركان صاع الرسوليد مري مركان سوتشي مبدي وحيقفوا لقفص مدو وحنا محوي حدنا كعر ألف ويل مري كعر هاي مري كوكنيت ويل يعني مركي فيس واش كمركان كم يدايبا ما شاء الله تبارك الله وجهي وحنا غلي دلال ما قلليو تراي من نقونيو وحن دريمي إن سايرك إنه وجهي كنوريو وهيلثي إنه كوسو نقضي إنه وجهك ده هيلثي نقضي والله وجهي وحن نقضي ما شاء الله تبارك الله روح إيه الدلال ما شاء الله إيه عدان مدبكي إيسو نقضي كما شيكين كرو ما شاء الله ما شاء الله إلا مالنكا laga bilaabo ayadana waan u sheegay wixii aan arkana gabdhaha Soomaaliyeed aan arko fawziyo ما شاء الله wixii gabar ay aragto waan u sheegay waxay tiraahdaa ilaahay igu ogyahay aan ka arkay productigaas aan u sheegaa umana xayeysiyo umana amaano nacam in kale waxaan idinku codsanayaa in aad bal nicmada aad haysatid ee aad aragtid ilaahay tusay walaalka ilaahay kuugu soo dhiibo walaalaha walaala wadaaga xaasib lama noqdo inaa bal intaad iska daysaan waxyaabaha kale at least bal once aad taagaraysaan bulshadeena kalena ku wacyigelisaan inaan iska dayna waxyaabaha kale ee chemicalka ahee yacni dhibaatada inoo geysanaya ما شاء الله فوزي إله خيرها كسيو أن كان دحجلو والله العظيم برودكتيان مركا أن ضد كسينايو
marka ugu horeyso horta waxaan idhaahdaa ilaahayow qofkan daawo qeyr qabto ugu daro wuxuu ilaahay daawo kuugu daro unbaa daawo ku ah oo ku anfacayo mogtahay qofkana markii alaabta ay gaarto uu helo uu yidhaahdo waa helay face washkii iyo serumkii iyo kareemkii walaalay seen u isticmaalaa wallaahi alcadiim inaan marmar ilaawo waa dhici kartaa laakiin inta aan xasuusanahay waxaa idhaahdaa markuu helo saas u isticmaal saas u isticmaal saas u isticmaal kadibna waxaa idhaahdaa inta aadan bilaabinna bisinka ku qabso bisinka ilaahay ku bilaabo sababtoo ah wixii ilaahay uu wax ka dhigaayo uu barakaynayo unbaa barakaysan laakiin 100% waxaan waa fiican yihiin 100% way ku shaqaynayaan ama way ku anfacayaan lama dhihi karo ilaahay awoodiisana waa inaad qofka aad karaamaysayo ugu dartaa bisinka wixii lagu bilaabo ayaa baraka leh mogtahay wallaahi waxaa idhaahdaa bisinka ku bilaaw qalbigaagana fur bisinkana bismillaahi raxmaan raxiim dheh marka ugu horeyso aa bilaabaysid marka that's why ilaahayna aan isugu xiro wixiina waa soo dadaalay haddii aadan muxuu ahaa aadan ilaahayna ku xirin oodan bisinkii oo awoodii dhanba adiga isbiddo ayada laftigeeda ilaahay wuu ku fashilin karaa ma fahamti waa xaqiiq waxa weeyaan bisinku waxa weeyaan waa barakadii shay kasta waxaad dadee ka dareemaysaa weynaantiisa iyo cadamadiisa uu leeyahay ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa waxa ugu horeeya waa bisinka nacam kitaab kasta oo la qoro oo culimo qortana ama xadiis ha ahaado ama fiq ha ahaado ama wuxuu yahayba cilmigu doona ha ahaada bisinkaa lagu bilaabaa nacam marka taa lafteedana waa sir aad halka dheer tahay wallaahi waa aadan u baqaa in badanna waan diinta wax waa ka garanayaa marka wixii aan fashiliyo ama aan garab maro waxaan isleeyahay muxuu ahaa in badan waa khasaaro unbaa la kulmaysaa marka insha allah ilaahayna waa isku xiraa waxyaalaha aan soo sameeyey oo aniga mas-uul ka ahay oon berri la iweydiin doonana aadan oga taxadaray inaana dadka qayaalin inaana dadka wax dhibaataynayo ama dadka haamgaraynayo inaadan u samaynin ilaahay wuu kugula xisaabtamayaa saasuu xoolahaada kuugu barakaynaya ummadaadii ilaahay ummadiisa adoomadiisana wuu kuu cabiidinayaa wuu ku jeclaysiinayaa quluubtoodu ilaahay wuu kuu jilcinayaa ma fahamti waa ikhlaas ilaahay subxaana watacaala qofka markuu hadlayaad ma garanaysaa waqtigay markuu wax sheegayo ayaad dareemaysaa yacnihii markaad qoftay qalbigiisu uu fiican yaho marka horeba xeqdi iyo been buu kuu sheegay iyo wixiisu kugu iibsanaya aanay kugu jirin yacni qofka ikhlaas markay ka tahay wuxuu qalbigan ilaahay baa xukuma kaagana ilaahay baa xukuma kiisana ilaahay baa xukuma marka isku si uma soo qabsanayo qofka dee qashka iyo sheegaya waxaan jirin ee ummadda khaldaya iyo qofka runta sheegaya qofku siduu kuula hadlayo deganaantiisa yacni anigu wallahi waxyaabahan ku qancay waxaa ka mid ahaa ilaahay igu ogyahay sidaad wuxuu sharaxaysid iyo markaan kula hadlay qaabkaad iila hadashay qof yacni nagnagsan oo wixiisa raba inuu suuq geeyo aanad ahayn yacni subxaan allah qof kasta oo aan facebookaaga siiyo oo lifekaaga daawada ama programmadaada daawada oo aan ku qancin hadalkaagana ay never seen in my life إن شاء الله ما شاء الله إلهي أمضها نوع عبيديو الدومدي سرين عوض في عن الله نسو آديو أننا حق الله نتصو إنا وحفي عنك هذا وحفي عن إنا صمينو وحاسو رن إلهي حقي سال إسكو حراء إلهي أوديه سووك أركا بن آذن ما قتلي كرتد الضون يرقو ضعيف أهاتهاي الدنيا ذا امتحان لوكيني marka ku imtixaanka ku baaso Allah naga dhigo ilaahay waxaan ka baryaynaa jannatul firdaws al-a'la inuu naxariistiisa nagu kulmiyo oo meeshaas ku kulanno cilmi cibaado aan shaqaysanay janno uma malaynayo inaan ku gali karno laakiin naxariista alle ayaa janno lagu galaa marka aad u mahadsan tahay ukhti habeen waqti dambe ku tahay barakallahu fiik inta dad oo umada ilaahay aadar ilaahay anoo ku ogeyn aad umadaas aad igu soo xirayso oo isleedahay qofkan walaasha ah iyo xoolaheedan iyo waxaan wanaagsan ha laga faa'iideysto xagga iyo xaggaba ilaahay wuu ku arkaa marka ajarka ilaahay xaggiisaan kaaga rajaynayaa
آمين معانك آمين أولاد وولدنا هاي وولدنا الله واحد كوحفظ هيرو صومالي وصوبحي قدات صوماليات وصوبحي إمارتي والله waxaan aaminsanahay dhibaatada ugu badan ee gabdhaha Soomaaliyeed haystaa inay tahay xagga quruxda marka laga eego wajiga يعني waxaan nahay dad kalarkooda duwan yahay oo dadka Afrikaanka ay la qaarad yihiin ka kalar duwan baynu nahay نعم maaragtay oo la kala rahayn oo jirkoodu ka jilicsan yahay يعني qof Soomaali ah oo anigu horena ma arag dadka wax iska soo saaraya mooyaane ilaa heerkaas soo saaray productiga isku dhamayska tiran marka adigana waan ku mahadnaqaynaa anigu maaragtay ku hadlaya intii program intii wada isticmaashay productiga iyo intii isticmaali doontaba waan ku mahadcelinaynaa juhdiga iyo dadaalka aad gelisay walaalaha iyo saad u qurxisay ilaahay adigana ha kuu qurxiyo businesskaaga ha kuugu qurxiyo maalkaaga ha kuugu qurxiyo reerkaaga ha kuugu qurxiyo qalbigaaga iyo cibaadadaadana ha kuugu qurxiyo آمين جزاك الله خيرا وإياك معان بدن وإياك بارك الله فيك حبيبتي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا أمهات سنتا خير بدن عند مانين الله قصيه هيا معان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج كعاو وايدين شاقي وحو أها برنامج آد مهم وحان بلوني sababta aan usoo galnayna waxay tahay dadkii isku waqti ma aha dad badan oo customerka kambaniga Asli Pure Skin Care ka tirsan oo dhowr iyo 10 sano nagu xirnaa dhowr adiga 10 ma dhahay astaghfirullah laakiin dhowr sano nagu xirnaa ayaan waxay rabaan inay feedback-yada nagala qayb qaataan marka waa gabdho Soomaaliyeed waa hooyooyin Soomaaliyeed marka dadkii isku waqti lama aha qaarkood Mareykan ay joogaan qaar Afrika ay joogaan qaar muxuu ahaa Yurub ay joogaan dadkii la isma haleelayo marka aniga qof shaqeeya ahay qof walba howlaa ka dhacdo dana ka dhacdo marka saas darteed ayaan YouTube-ka u sameeyay insha Allah taala wixii gabdha ah muxuu ahaa kambaniga ka tirsan oo muxuu ahaa customer noo ah oo productiga live u isticmaalay intaba waa soo gelin doonaa gabdho badan oo marka hore wajigooda dhibaato kala kulmay kadibna la qabsaday group wajigooda markay marsadeenba markiiba la qabsaday oo wajigii waaw noqday intaasba waa wadaagi doonaa insha Allah taala hadii Ilaahay laga helo oo nafta noo daa insha Allah taala marka productiga waxay leedahay siyaabo kala way tiro badan tahay waxa kale oo kamid ah foundationkii isaga laftigiisa u baahan very careful in loo sameeyo waa maxaa la dhahaa waa foundation iyo concealer isku jiro dadka very sensitive ka ah haday marsadaan wajiga dhan wuxuu noqonayaa naacim iyo soft iyo clean iyo no allergic at all sababtoo ah moist lagu qasay moist waxa la dhahaa wax cream oo kala lagu qasay biyo ma lagu qasin so marka marsatid waxa arkaysaa glowing iyo shiny iyo dhalaal iyo shacni ma sha Allah lipstick aan hadda marsanayay hortiina aan ku sameynayayna waxay ahayd lipstick aan rabay inaan idin tuso and this color also markii hore saakada hore marsaday hadda tanna waa ka dul marsaday marka lipstickada laftigooda waxay leeyihiin bishinta dry kama dhigayaan uma qalajinayaan lipstick quality-geeda lacagteeda waxay ku xiran tahay quality-geeda ma sha Allah ta marka Ilaahay khayr badan ha idin siiyo aad u mahadsantihiin YouTube-kayga wixii hadda ka dambeeya insha Allah regular ayaan isku dayi doonaa inaan video muhiim ah aan soo geliyo ayadoo laftigeeda la marsanayo make-up-kii aan live u marsanayno qaabka loo marsado qaabka eyeliner-ka loo sameeyo eyeliner-ka teeda kale cheeks-ka waa arkaysaa dhabanada meesha contour hadaa ka dhigi lahayd saas contour u ahaan lahaa waxaasoo dhan oo habaysan wajigeena shape-keena qaababka every shape sida uu ku qurxan yahay marka la mariyo marka make-up-ka marsanaysid insha Allah taala aan wadaagi doonaa YouTube-keena hadaa ku cusub tahayna si aad la socotid subscribe saar like saar commentiga ku soo qori kartaa teleefankayga ku qoran insha Allah taala waxaan isku dayi doonaa barnaamijyo muhiim ah oo wax badan laga faa'iidi doono insha Allah taala inaan soo geliyo hadii Ilaahay raali ka noqdo aniga idin jecel idinkoo jecel waxa idin kaga tagayaa wallahu ma'ana wa ma'akum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh